السلام عليكم magacaygu waa Amiin Amni halka naga daawanaysan waa kanaalka Faraxlo maanta waxa rabaa inaan idin la wadaago shanta baasaboor ee ugu liita qaaradan Afrika inta aan u guda galin muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa inaad ku soo biirtaan kanaalkan Faraxlo sidoo kalena like saartaan muuqaalkan baasaboorka koowaad ee ugu liita qaaradan Afrika waa dalkeena Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya waxaad fiisa la'aan ku degi kartaa 6 dal halka 31 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 161 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Soomaaliya waa 37 dal baasaboorka labaad ee ugu liita qaaradan Afrika waa dalka Eritrea baasaboorka Eritrea waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 8 dal halka 34 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 156 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Eritrea waa 42 dal baasaboorka saddexaad ee ugu liita qaaradan Afrika waa dalka aan dariskana ee Ethiopia baasaboorka Ethiopia waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 10 dal halka 34 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 154 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Ethiopia waa 44 dal baasaboorka afraad ee ugu liita qaaradan Afrika waa 3 dal oo lagu kala magacaabo Suudaan, Liibiya iyo South Suudaan micnaha 3dan dal ayaa soo galaya baasaboorada afraad ee ugu liita qaaradan Afrika balse aan ku hormarno dalka Suudaan baasaboorka Suudaan waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 9 dal halka 36 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 153 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Suudaan waa 45 dal aan ku xijino baasaboorka Liibiya oo asigana ku jira kaalinta afraad ee baasaboorada ugu liita qaaradan Afrika baasaboorka Liibiya waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 11 dal halka 34 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 153 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Liibiya waa 45 dal sidoo kale baasaboorka South Suudaan ayaa ku jira kaalinta afraad ee baasaboorada ugu liita qaaradan Afrika baasaboorka South Suudaan waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 13 dal halka 32 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 153 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka South Suudaan waa 45 dal baasaboorka shanaad ee ugu liita qaaradan Afrika waa 2 dal oo lagu kala magacaabo Democratic Republic of Congo iyo Republic of Congo labadan dal ayaa soo galaya baasaboorada shanaad ee ugu liita qaaradan Afrika labadan dal magacyo isu shabaha ayay wadaagaan laakiin waa 2 dal oo kala duwan balse aan ku hormarno baasaboorka Democratic Republic of Congo baasaboorka Democratic Republic of Congo waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 12 dal halka 34 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 152 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Democratic Republic of Congo waa 46 dal sidoo kale baasaboorka Republic of Congo ayaa kaalinta shanaad kaga jira baasaboorada ugu liita qaarada Afrika baasaboorka Republic of Congo waxaad fiisa la'aan ku tagi kartaa 11 dal halka 35 dal fiisaha lagugu siinayo airportka gudihiisa 52 dalna waxa lagaga baahan yahay fiiso tirada guud ee aad ku safri karto baasaboorka Republic of Congo waa 46 dal